السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن سلامين ميل بدون دافيد كجوكتم سو دواada bartida YouTube ka inuu xiga actually maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo DS260 sida loo buuxinayo exactly online kuma hay oo yani sida loo buuxinayo saan hada maanta ma dhigi kari waayo ma hay case number ma hay asxaab badan aan ila soo xiriirtay i weydiiyeen yani case number nuux ma la iska xadi karaa hadaan guuleysto oo barnaamijkayga qofka ma la wareegi karaa yani magacayga iyo wixii in la wareego ma kusoo samaysan karaa asaga booska aniga ka bixi lahaa asaga ma ku baxayaa iyo maaragtay sida loo buuxiyaa su'aalo kala badan adiga tiro badan qofka meel buu ka dhiban yahay kule oo aad garan kartiin barnaamijkan wuu xidhnaa from ilaa iyo 7 la soo guuleystay ilaa itaari 13 aan soo dhaafnay shalay toole waa yar mashquulsanaa barnaamijka maintenance ku socday marka hadda I hope inuu wanaagsan yahay loo buuxin karo oo furin yahay aan jecelahay odo maanan eegin laakiin waxaan jecelahay in uu maaragtay sameeyo maintenance ka hadda ka baxay oo caadi yahay asxaabta soo xiriirtay su'aasha igu la yaab badnaa ay noqotay oo ah ma la iga xadi karaa waa guuleystay case number waa haystaa passport number ku soo apply gareey misma ku soo apply gareeninbo ma la iga xadi karaa marka su'aasha igu yaab badnaa su'aashaas ayaan inta weydiinay lagama xadi karo waxa lagaaga xadi karin sababooda badan u jira awgeeda example waxa kamid ah sababahaas sawirkaaga aad gelisay maalinta kooda soo apply gareynayso Soomaha October ama November mid ka soo apply gareysay waxaad gelisay sawirkaaga qof kale isna isku ekaatiin waa macquul laakiin qofkaas inta lagu raadinayo waa time tan kale passport number ku soo apply gareysay ka soo qaad passport number kaaga iyo qofkaas passport numberkiisa same ma noqonayaan taariikhda maaragtay passport ka qaatay iyo taariikhda soo qaadan doono waa kala tafaawul different way marka ma laga xadi karo case number kaaga cabsi ka qabin oo maartay in laga xado DV lottery-ga ku guuleysatay laga xado oo qofka ka qaato macquul maaha laakiin mid baa dhici karto yani ka qalqalin karaa barnaamijka adigoo aan loo dalbano aan loo ku dalbi karaa adigoo maartay waxa ku buuxsatay ay wax kale ku buuxin karaa way dhacday hadda ka hor waxaan maqlay ma garanayo dadkaas asxaabtaas dad ay jiro waxay dhaheen dadka buuxinaa DS260 marka qof soo guuleysto ayaa buuxinaa marka qofkan laakiin wuxuu ahaa branch ma ahayn ama agent ma ahayn wuxuu ahaa just qof kala saacideena oo weydiistay saacideedahay wuxuu ku sameeyay gabaray ahayd asiga isku daray booski inuu ninkeeda yahay oo iska dhigay oo family yihiin waa guursado ka dhigay meesha single ka ahayd married ka dhigay booska meesha detailkiisa geliyay ayadana detailkeeda uu geliyay marka way dhacday 2022 wiinaska ku dhacday ana specify greening meeshii joogan iyo meeshii tahay ka dhacday laakiin way dhacday taas way jirtaa way dhici kartaa marka qofka inuu maaragtay information qaldan kugu buuxiyo barika maalmo interview tagtid oo dhaa information ka watada information ka leeyahay isku mid maaha marka heshiis waa dhici karaa laba qof way heshiin karaan oo maaragtay waa isku buuxsanaynaa yani adigana marwadeeda noqon adigana ninkaaga noqonaya ahaan oo ku buuxsan karaan oo ku samaysan karaan oodo inay maaragtay keeskana yara adkaanayo oo maaragtay su'aalo badan xaggaas ka dhalanayso marka asxaabtaasaa jirtay marka saasay ka cabsi qabeen maybe anigu waan jeclaa inaan weydiiyo dad oo maaragtay kasoo qaado dad aan kasoo qaado ma arkin laakiin dadka aan asxaabtan hay wareysanayo maybe weydiinayo su'aalo oo rabaa inaan ka saacideeyo su'aalaha in oo yani wixii ayaga fahmi waayaan u sheeg wixii meesha la gelinayo way ula qurux badnaan weysinaan dhaha case numberkeena case numberkeena video ka sameynaya aan dadka asxaabta lagu wadaagaya oo ayagana faa'iido ugu jirto oo ah exactly loo buuxinayo ogaanayaan anigana faa'iido ugu jirto oo walaalihii Soomaaliyeed ayaa tusaya sida maaragtay loo buuxiyo oo maaragtay information wixii loogu baahan yahay laga geliyo ayaa tusi lahaa marka wali anigana kuma dhiiranin hal qof aan weydiiyay hal qof wuxuu soo fikiraya maybe taas oo iyaga cabsaday in anigana maaragtay case numberkiis wax qaldan ku sameeyo maybe aan dhihi karaa 100% sure ma aha laakiin saas inuu iga yara baqdo oo is dhahay ama wax qaldan sameeyaa so that aniga wixii aan waaya nasiibkii aantan dad dhexdooda kaga dhex guuleystay ama si fudud igu dhaafaan ayuu is dhahay kulay qofkii hadda ila soo wadaagana maartay case numberkiisa oo dhaha way welcome wala ku sameey akhyaartan ku tusi anigana ii faa'iido su'aalaha u baahanahay aan ku weydiiyo ama highly welcome duwa soo dhaweynaya kulay aniga rajo kama lihi qof case numberkiisa inaan ka qaato ama in qof wixiisa ka aqalinayo yani dibka u gaarsiiyo marabi insha Allah billahi karim waan sajidon ku jiro waan raadinaya research ku jira waan raadinaya qof hadaa helo
waa well and good within this week aan dhihi karaa already 1 week waa past had waa soo dhaafnay xilliga la sheegay xilliga kala wax yar ka dhiman ba saacado nooga harsan kulay aniga hadda galabay ii tahay kulay idinkana hal saac meeshii laga gaaro Africa East Africa waxay noqonaysaa xilliga lagu dhawaaqay noqonaysaa meeshii laga gaaro maqribkii hal saac habeenimo marka taas in ka jahil bixinay DS260 waa form aad u balaaran oo weyn oo maaragtay dhir badan information kala gaan doonayna waa meesha kali ah oo xogtaada laga heli karo marka meeshaas buuxisid baa xogtaada la heli karo oo interview wax badan 100% ama 190 aan dhigi karo ka imaanayaan waa xagaas inta kale soo haran waa 2 ilaa 3 question oo outside ka ah labada ka ahan waa inta waxbarashadaada iyo experience iyo shaqada waxa soo shaqeysay inta lagu weydiinayo on way inta kale waxay ka imaanayaan almost maaragtay DS260 gaaga su'aalahana ma badno interview ma adka kulay waa dadka hadda iska geesgareynayaan oo maaragtay interview meeshii maaragtay wixii lagu su'aalay hadda inay si ogaadaan jecel yihiin laakiin wali maaha wali lama gaarin interviewga processka waa almost September wixii ka dambeeyay ayaa processka bilaabmi doona September marka ma badhawo insha Allah hadda iska sii buuxiya DS260 iska sii buuxsado tartiibtiina idinku timekiina qaadanaya wax walbana si marka fursashada u haboon u buuxsanaya insha Allah ku buuxsada su'aalaha bay badan yihiin dabcan qof walba su'aashiisana maskaxda exactly kaaga soo dhacayso sida hadda maaragtay qofkii example ka soo qaad oo nan guursanin markuu apply gareeyay single ku apply gareeyay laakiin by time hadda inuu guursado noqoto uu guursado maybe bil ama 2 bil ka hor guursaday ama hadda dad baa jiro oo ku banini kunyoonaya ama ku sameynaya niyadooda ay dhahay maadaama aan guuleystay gabar aan ku darsado ama maadaama aan guuleystay wiil aan ku darsado gabadha ku heshiinayaan way jiri karaan waa sax ma xumo waa ku kaxin kartaa chance waa qofkaas kala carf ugu jiro oo ku tagaay laakiin su'aalaha iska xaqiijiya su'aalo badan baa jiri karo oo labadiina idin weydiin karo information badan iska siinaan karaba inaas waxa sameeyeen marriage certificate waa in karaba ma noqon karta marriage certificate ka may inay noqoto may ka horeyn karta inay may ka horeyso in bakuuron cadeemo badan waa imaana su'aalo badan waa lagu diina oo soo sensitive ah marka xagga ku joojinaya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحي سؤال أجعشينا ويلسو ودايق كرتين I try my best إن بدنا ربنا يوصل قاله وإن كوجبها هدي أنا حليلي كرنا فيديو قصص مين كرن أكتو سمية إن شاء الله بإذن الله الكريم أنت تسوي جنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته